بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كسر ولا برنامج كير رمضان تين رشا. ما أنت الموضوع يعني وحوي صدح سر أو كعان كاتنا آخر سكاك بدي سو آخره بوجاك فرقنا. أنا برونو سرو. صوم 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 بشهر رمضان صوم 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 بشهر رمضان صوم 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 قلب كنا كولا كهكذا دقيقة صاحب آخر سكو وحوي إن أتسوي بسته بوجاك فرقنا. بالكستا liiskaaga wax iibsiga waxa laga marmaana inaad ku darto ugu yaraan hal buug si aad u noqoto akhriste. qarnigan aan hadda joogno qof walba aqoontiisu waxa ay tahay inta uu akhriyo. haddii ku dhawaad hal bil aad waxba akhrin waxa lagaaga tagayaa bannaan cad. sidaa daraaddeed adiga inaad buug soo iibsato waxa ay kaa caawinaysaa xataa adoo buugta xiisinin inay buugta kuu yaalaan inaad akhris bilowdo ayaa ay kaa caawinaysaa. marka markasta isku dayo wax soo iibsanaysid bishaada inaad liiskaaga ku darto buugaag. qodobkeena labaad waxa weeye ugu yaraan maalintii nus rubuc ka sii waqtigaaga wax akhriska. tani waa sir muhiim ah inaad maalintaada qayb ka siiso wax akhris. waxa ay kaa saacidaysaa inaad noqoto akhrise naftiisa anfaca. qaabkan waxa uu kaa caawinayaa hadhow inaad sii korodho oo haddaad maanta 30 siisay beritoole aad saacad siiso saacadiiba saa u sii kordho. sideena u siin kartaa waa inaad naftaada u ballan qaadaa waxyaabaha iyadu raalli ka tahay. sida imika waa inaad tiraahdaa 30 daqiiqo waa akhrinayaa 30 daqiiqo ka bacdi bes waxaan isticmaali doonaa 15 daqiiqo internet. 30 daqiiqo akhrinayaa marka haddii aan 30 daqiiqo dhameeyo ayuu dheersaas jimicsigan samayn doonaa. 30 daqiiqo akhrinayaa hadda 30 daqiiqo akhriyo sidoo dhamayso wax cusub baan cuni doonaa. si naftaada ay waxaan ula qabsato waa inaad alaamano u ballan qaadaa ka hor intaad wax akhriska dhameyn. kadib naftu waa ay samaynaysaa sidaas. hadhow toole haddii aad samayso ku dhawaad 30 cisho ilaa 40 cisho waxay ku noqonaysaa caado rasmi ah. waxaan arkaysaa adoo wixii baasha ku noqday oo sii kordhiyey oo ka dhigay 40 daqiiqo saacad iyo bar 2 saacadood ilaa uu ka mid noqdo nolol maalmeedkaaga caadiga ah. qodobkeena saddexaad ahna qodobada ugu muhiimsan akhriskaaga ka dhigi kara akhris badan aqoontaadana kordhin kara waxa weeye in akhriska ka bilowdo waxyaabaha aad jeceshahay. qaladaadka dhalinyartu galaan waxaa ka mid ah in marka wax akhri laga dhacay buugun iska soo qaataan. waa inaad ka bilowdo akhriska waxaad jeceshahay waxaad baasha kugu tahay waa inaad ka bilowdo. naftu waxa ay xiisaynayso waa ay bilaabi kartaa laakiin waxaan xiisaynayn waxaan ku dareemaysaa xasilooni la'aan. mawduucyada aad jeceshahay inaad wax ku ogaato akhriska ku bilow inta aanad gaarin mawduucyada kale. marka mawduucyadaasi haddii aad la qabsato hadhow waxaad akhrin kartaa mawduuc aanad baasha ku tahay marka aad la qabsato. laakiin akhriskaaga haddaad ka bilowdid mawduuc ama leh dhinac aanad rabin inaad wax badan ku ogaato akhriskaagu waa joogsan doonaa. haddii aad xiisaynayso taariikhda fadlan ha ku bilaabin suugaanta ee taariikhda ku bilow. marka mawduuca adigu aad jeceshahay ka bilow kadib wuxuu kugu hagi doonaa dhamaystirta. saddexdan qodob waxay kaa caawin doonaa inaad noqoto akhriste. ugu dambeyn waxa weeye in adigu go'aansato inaad noqoto akhriste rasmi ah si aad u anfacdo dunida naftaadana u anfacdo qarniga aan joogno aad la socoto. waad mahadsan tahay. buugta la saaxiib mahadsanid anakana nala saaxiibo subscribe taabo. السلام عليكم. صوم 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 بشهر رمضان صوم 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 بشهر رمضان صوم 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 صوم